Sorwal, sorwal. Sorwal, sorwal. Sorwal, sorwal. Sorwal, sorwal. Daljir kadasun. Ya anda sorwal, sorwal.
soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada wax yar baynu maaragtay soo qaadanaynaa arrimaha maaragtay gobolka banaadir iyo maaragtay dadka mucaaraday iyo arrimahaas oo dhan ayaynu si quickly oga hadlaynaa inoo sheer gareeye xuseen soo dhawow hiidkaynu gaadhsiinaynaa hiidka soo dhawaada wax yar baynu soo qaata calaamadihiisa maanta maalmahan waa maalmihii xorriyadda walaalayaal soo dhawaada soo sheergareeya sheergareeya gaarsiiya okay walaalayaal soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada caaw waxaanu ka sheekaynaynaa maqaamka gobolka banaadir iyo maaragtay dowladda federaalka ee soomaaliya labada gole oo ansixiyey 13 xildhibaan way u qalmaan ayaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogto waana taageeraynaa boqolkiiba boqol gobolka banaadir xaq ayuu u leeyahay faalmo wadani soo dhawow waan ku soo qaban doonaa insha Allah waan ka xunnahay nimanka maamul goboleedka sheegtay Puntland maaragtay afka furtay waxay go'i karaanna ma laha munaafiqnimo ayay ummadda Soomaaliyeed la dhex joogaan hartina uma adeegaan ma jarteena uma adeegaan mana matalaan
ogaadeenna annagaa ah ma matalaan waxay haystaan nin coomaadi oo ay ku shaqaystaan oo axmed madoobe la yidhaahdo axmed madoobe geedanaar andhuxulayste oo jaajuus ah shalayna u shaqaynaya tigreega maantana u shaqeeya sankadhuudhiga kenya waan ka xunnahay faroole adeer faroolow waxaan ku leenahay kaba la-eg xidho ayaan ku leenahay faroolow kaba kula eg xidhaan ku leenahay walaal kaba kula eg ma qabtide faroolow ma aha muqdisho meeshii aad dadka ugu hanjabaysay ee aad lahayd geetimirkaan idiin fadhiisanayaa adeer muqdisho ma aha garoowe 3 milyan baa degan xaq bay u leeyihiin adaa hortaagnaa adoo coomaadi abaad hortaagnayd adeer tagsiilaad ka ahayd meesha la yidhaahdo tagsiilaad ka ahayd meesha la yidhahdo australia cilmi iyo diinna maada baranin jaahil baa tahay sool iyo sanaag iyo caynna idinkaa dayacay oo ka soo cararay oo maaragtay uga soo cararay cadowga soomaaliyeed kala go-a soomaaliya wada idinkuna kala go-i mid lamidaad wadaan laakiin idiin socon mayso shacbiga puntland waxaan leenahay dad sharaf laa tihiin waan idin taageersannahay laakiin 4 nin ee tuugada ah ee 20 sane u dambaysayna muqdisho iyo maqaamkeeda diidanaa gobolka banaadirna diidanaa mareexaan iyo ogaadeenna isku diray meesha la yidhaahdo jubbaland nimankii ku fahantamayee lahayd calanka jubbaland annagaa samaysay adeerayaal jubbalandna shaqo kuma lidin mana degtaan waxaan leenahay ninka la yidhahdo faroolow maanta cuqubadii ummadda soomaaliyeed baa kugu dhacday carruurtaadii ayaa hooyadood dilay maanta waxba ma haysid waxa weeyaan bannaanka maaragtay wax aad haysa male aakhiriya adduunna waxba ma haysid gurigaagii baa ilaahay masiibada ku riday gobolka banaadir ummadda soomaaliyeed caasimadiisii weeye anigoon deganayn ayaa taageersan 100% inay helaan 20 30 40 50 xildhibaan inay helaan xaqayana u leeyihiin faroole ayaana idin hortaagnaa ummadda soomaaliyeed ee gobolka banaadir deganay hargeysana qaraxyada soomaaliya laga abaabulo ayaa laga keenaa oo dahabshiil ayaa idin dhex fadhiya calooshiina carruurtiina gowraca ninkii u dambeeyey ee maaragtay diyaaradda qarxinayay ee maaragtay hoosta aad ku haysateen cadowgiina aad hoosta ku haysateen canshuurtiina siinaysaan iska cayriyaan leenahay hargeysaa laydinka dumiyaa garowaa laydinka dumiyaa kismaayaa laydinka dumiyaa annagu cid aan maaragtay laa nakhaafu lilaahi lowma tallaa'in adeer waxaan leenahay ma taqaanaa faroolow xaaraan baa tahay faroolow waxaa tahay kansarkii soomaaliya ku dhex jiray baan ku leenahay ka dhex baxa ummadda halkaasaad u dhex fadhiday carruurtoodaad leynaysay maaragtay muqdisho iyo baydhabo iyo kismaayo ninka isku diraa tahay mareexaan iyo ogaadeenna adaa isku diray oo maaragtay dhaawacyada ogaadeenna soo qaadaya kuwa mareexaankaana kaga tegaya bannaanka adeer annagaa ogaadeena ee axmed madoobena annagaa cayrinayna xaaraan baa tahay ninka la yihahdo faroolow xaaraan kunaax baa tahay adeer waxa weeyaan 13 baa tiri ee 50 baa la siinayaa gobolka banaadir xaaraan baa tahay faroolow garowna anagu ma rabno kuguma iman mayno garow anaa sanadkii hore tagay dad sharaf la degan beesha la yihahdo garowe abti waan ku salaamay zakiya soo dhowo farxaan soo dhowo najiib soo dhowaada waxa weeyaan kansar baa ummadda soomaaliyeed u dhex fadhiya garowe 4 nin oo tuuga ah oo maaragtay xaaraan kunaax oo niman aaran jaan la yihahdo oo cali warsame iyo ninka la maxamuud shido ayaa meesha ku shaqaysta ummadda soomaaliyeed annagaa runta idiin sheegayna gobolka banaadirna meesha laga naafeeyo waa hargeysa waa meesha la yihahdo garowe iyo kismaayo iyo baydhaba laydinka naafeeya ummadda soomaaliyeed annagaa runta idiin sheegayne gobolka banaadir aniga gurina kuma lihi waryaada laakiin waan taageersanahay 100% waxa weeyaan xaaraan baa meesha u dhex fadhida adeer gobolka banaadir wuxuu helayaa xaq aad 20 sane u dambaysay faroolow aad ku fadhiday adigu oo aad saa ugu fadhiday adeer daaroodna ma matishid waxa weeyaan shalay rag daaroodaad ku leynaysay meesha la yihahdo oo warsangeli ah meesha la yihahdo garowe ninka la yihahdo daniyow oo maaragtay faroolana gadaal kuu fadhiyey war ummadda soomaaliyeed mareexaan iyo ogaadeenna iyagaa isku dira oo hubka isugu dhiiba waxa weeyaan maxaa adeer shacbiga soomaaliyeed
garowow maanta la idinka rabaa ummadda Soomaaliyeed inaad u helisaan laba midun bay noqon inaad xaaraan dhashay aad taageertaan oo xaaraan dhashay inaad taageertaan iyo inaad ummadda Soomaaliyeed iyo caasimadeeda iyo madaxda qaranka inaad taageertaan labada midun bay noqonaysaa wax kale meesha ma yaalaan waan naqaanaa iyada hargeysa qaabka loola macaamilayo waan naqaanaa gooni goosadka iyaga xaaladooda waa dhabarkan ka jabinaynaa iyaga waxa weyn wax kala ma hayno ummadda Soomaaliyeed calankaas dadka diidan iyaga wax kala ma hayno carabkan ka goynaynaa iyaga waxay ku soo hadhay nin munaafiq ah oo garowa ku fadhiya oo ku leh ummadda Soomaaliyeed oo haddana dhaqankii iyo diintii iyo wixii oo dhan diidan iyo horumarkii oo maaragtay 20 sano xamar kursi ugu fadhiyay kursiga xamarna ku fadhiyay maqaamkan diidanaa wariyaa ummadda Soomaaliyeed cadaaladda ma taqaanaa wariyaa ummadda Soomaaliyeed cadaaladda ma taqaanaa dawladda Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo waa nin daaroodka meesha lagaga fadhiyo waa Garowe meesha lagaga fadhiyo waa Kismaayo waa nimankaas criminal gangiska anaga runta idin sheegin ummadda Soomaaliyeed Axmed Madoobe waa criminal gangis iyagana fangareeya iyaga yiraahdo wiil waxa la abti meel xun uu ka raacay ninkan ma jeerteen baa dhaqan ogaadeen malaha xataa dhaqan ogaadeen malaha Axmed Madoobe haddaad moodaysaan dhaqan ogaadeen xataa malaha waxa weeyaan wiil xun abti xun wiil baa meel ka raacay leeyahay abtiyadii uu raacay numa xisaabsano ogaadeen ma Axmed Madoobe waa xaaraan ku nax weeye waana ka cayrinaynaa adeer gobolka Banaadir xaq buu leeyahay madaxweynuhu 7 soo jeediyay 6na waa loogu daray qul muutu biqaydikum baan idin leenahay kuwa nabadda diidan horumarka diidan midnimada ummadda Soomaaliyeed diidan ee uu Faroole ka mid yahay ee uu Maxamuud Shido ka mid yahay isagoo calool weyn xaar uu ka buuxo Maxamuud Shido xaar baa ka buuxa Maxamuud Shido ninka leeyahay Faroolow xaar baa ka buuxa caloosha xaar baa kaaga buuxa ninka leeyahay Daniyow xaar baa kaaga buuxa adeer la nakhaafu lillahi lawmata laa'im cidna annagu kama xishoono waxa weeyaan maxay tahay waxa weeyaan 20 sano dadka Muqdisho la baabiinayay oo qarax loo dhigay oo nin calool weyn oo xildhibaan aad ku sheegaysaan oo hoteelada idin jiifa oo gabdhihiinna maaragtay xaaraan loogu geeyo ayaad reer Muqdisho hoosta ku haysateen oo kuraastiinna ku fadhiyay maanta wakaas muxuu ku qayliyaa ninka la yiraahdo muxuu ku qayliyaa ninka la Faroole away madashu hadee waxa weeyaan dantoodii bay gaareen madashu dantoodii bay gaareen waxay Xasan Sheekh Maxamuud oo aad ku adeeganaysa ma aha oo marna aad leedahay Garowe 3 adeer ummadda Soomaaliyeed cadaalad darrada aad aragtaan waxa weeyaan Maxamuud Saleebaan niman leeyahay sameeyay oo Faroole kow ka yahay oo Cabdullaahi kow ka yahay oo uu ka mid yahay ninka leeyahay ogaadeen waxba ma ogolo dhul bahantana waxba ma ogolo wiilashii shalay lagu laayay soo daarood ma ahayn warsan gali meesha leeyahay baarlamaanka Puntland adeer xaar baad ku fadhidaan caawa gobolka Banaadirna annaga 20 siinayna anoo Axmed Nuur Sheekh Cabdullaahi aba 13 waxaan ugu daray 20 bay helayaan maqaamkoodina waa la dhisayaa qul muutu biqaydikum idinkiyo kuwa Hargeysa jooga ee Faysal Afxume iyo ninka leeyahay Muuse Handaraab baa maanta idinka fiican boo soo xarooday oo dadkiisi confederation la galaya xageed joogtaan idinku wariyaadaha war xageed joogtaan runta la idin sheegaya Maxamuud Saleebaan baatiin ma jeerteen xataa ma haysataan xageed tagtaan wariyaadaha gaalkacyo waqooyigeedii iyo inta u dhaxaysa waxaa degtaan meesha la yiraahdo Qardho gobolka barina dad kala deego Soomaaliyeed waxa weeyaan gobolka barina waa la idinka jaraaya maxaad la go'aysan marka xaaraan ku naaxiye yahay xaaraan ku naaxiyadu dhaleen xaaraanta ibnu xaaraan dhalay baa ka buuxa meeshaas waa dadaan xaq aqoonin waa dadaan diin aqoonin waa dad xaaraan ah oo la isu keenay weeye ummadda Soomaaliyeed maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin daarooda halkaasay ku dhagan yihiin ninka leeyahay Axmed Madoobe iyaga ku shaqaysta oo amra oo maaragtay ku shaqaysta marka ummadda Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa maanta xaqii baa daahiray xaq bay u leeyihiin 17 waxa weeyaan wax qabiila oo aan shaqo ku lahayn malaha kuwa la taagan daarood baa sidana daarood adeer waa la wasaa anaa idin sheegaya caawaan runta idin sheegaya daarood waa la wasaa
kuumada waa la wasaa maxaan ku idhahdaay kablalax waa la wasaa haddaan runta idiin sheegaya ummadda soomaaliyeed laa nakhaafu lilaahi lowmata laa'im marka xaqdarrada iyo cadaalad darradu ay timaado ayaan anigu maaragtaaye aan xanaaqaa soo dhawaada sheergareeyo gaarsiiya waxa weeyaan farole iyo maaragtaaye dadka uu ku shaqaysto ayaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa inaynan dan ka lahayn dadka ay sheeganayaan majeerteen iyo daarood iyo harti midna danahooda iyo caarkooda iyo cisalkooda iyo calooshooda ay u shaqaystaan nimankaasu ummadda soomaaliyeed runtaan aanu idiin sheegayaa waxa weeyaan maxamed cabdullaahi farmaajo lagu xumaynayaa shalayna maxamed siyaad barraa lagu xumaynaya waddanka garowe hadda waddada xataa sanad ka hor baa tegay rabadaankan hadda rabadaankiisii hore waxa weeyaan jid ma jiro jidkii siyaad barraa alla marayaa ilaa hargeysa maxaad dhisatay kismaayona aarigadii iyo inta udhaxaysa dekeddaa liisha inta kale waxa weeyaan waa baaba-ay maxaa meesha lagu hayaa waxba laguma hayo waxa weeyaan dad gaangisaa haysta soomaaliya dad gaangis ah ayaa haysta oo u shaqeeya cadowga soomaaliyeed imaaraad iyo etoobiya iyo kenya oo cadowgii soomaaliyeeda gabre carruurtiisii baa noo dhex fadhida adeerayaal maanta in la buufiyo weeye gabre carruurtiisii ayaa noo dhex fadhida axmed madow baa ka mid a kow waxaa ka mid a ninka la yihahda maxamuud sayid aadan faroolaa ka mid ah deni baa ka mid ah cabdiweli gaas baa ka mid ah xasan sheekh maxamuud baa ka mid ah ninka la yihahdo shariif sheekh axmed baa ka mid a ninka la yihahdo waxaa ka mid a muuse handaraab waxaa ka mid a ninka la yihahdo cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa ka mid a cabdirashiid cali sharmaake cabdirashiid xalweyste baa ka mid a raggaasoo dhan waa ragga ummadda soomaaliyeed lugaha haya weeye ee cadowga soomaaliyeed u shaqeeya kenya iyo etoobiya iyo imaaraad waxa weeyaan anagu runtaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeeday waxa weeyaan laa nakhaafu lilaahi lowmata laa'im waxa weeyaan sheergareeyo gaarsiiya walaalayaal waxaan soo qabanayaa intaan cishaha la gaarin hal qof ayaan soo qabanayaa falastiin axmed dhowre ama axmed muusaan soo qabanayaa si uu brogramka samadoonka soomaaliyeed soo dhawaada dhammaantiin sheergareeya oo gaarsiiya dhammaantiin xaggee waxaan oo kale lagu arkay wax walba waa la diidayaa wax walba waa la diidayaa waxaa xaggee lagu arkay ummad dhan oo laleeyahay kuraasteedii rag baa ku fadhiya oo diidan ha oo xataa waxaa la soo saaray nin waalan oo kuraasta fuulayaa la soo saaray oo laygu yiri oslo weeye anu weligay ma arkin baan ninka noocana markii sawirkiisa la ii soo diray anaa oslo 20 sano deganaa weligayna ma arkin qofka noocaasa ayaa lagu leeyahay dibaduhu ka tegey oo xadayri xataa aan ahayn akhlaaqiyaad xataa ma jiro waa nin keligii 140 baa lagu ansixiyey ummadda soomaaliyeed oo dhan baa ansixisay maxaa laga rabaa dadka muqdisho marna waa la qarxinayaa marna gabdhahooda maaragtay hoteelada loogu geynayaa $5 lagu bikri jabinayaa ma waxaa xaaraantaabaa idiin dhex fadhiya war iska cayriya waa la iska cayriyaae xildhibaano maaha nimankaanu tuugay ku yimaadeen war tuugay ku yimaadeen nimankaanu waa wada xasan firimbe oo miiran ha oo kenya ay soo dirsatay iyo axmed madoobe iyo ninka la yihahdo iyo xabiib ooyayo oo miiran weeye ragga idiin dhex fadhiya oo habeenkiina gabdhihiina yaryarka ah oo 15 jirka ah lagu bikri jabiyo waxa weeyaan waan kaa qaaday hani cusmaanay gabdho yaryar aanu maqdisho anaa tegey hoteelada gabdho yaryar baa loogu geeyaa raggaas oo 13 14 oo xeryaha barakacyaasha iyo magaalada muqdisho meel walba laga keenay waxaa laydin leeyahay waa xildhibaano oo kuwaas ummadda soomaaliyeed oo dibadda ka wada tegey hadhowna kii canshuurtaada cunayay ayaa gabadhaadana bikri jabinaya xaaraan ku bikri jabinaya iyo $10 kursigiina uu kaaga fadhiyaa oo wuxuu leeyahay muqdisho waxba lama siinayo baydhabo ka imaaday wuxuu ka imaaday garowe kismaayo ka imaaday muqdishona ma uu rabo xaqeeda inay hesho xaggee lagu arkay what kind of markaa human right xataa meeshaa meelkaa miyar ma ka jiraa war ilaahay baan ku dhariya ummadda soomaaliyeed cadaaladda ma taqaanaan miya war anu runtaan idiin sheegayaa aniga hooyadayna hawiye ma aha aniguna hawiye mayi laakiin marka ay cadaalad darradu timaado anu dadka cadaaladoodii lagu fadhiyo
labaatanka sano lagu fadhiyay la qarxinayay gabdhaha laga kuufsanayay kuwaasaan anu lagu hiilinayaa axmed madoobe wuxuu yahayaa kismaayo caawa ma tegi karo magaaladaydii ma tegi karo wakaa xaaraan buuna ku joogay axmed madoobe dadkii deegaanka u dhasho o dhanna waxna wuu laayey waxna wuu masaafuriyey waxna wuu sameeyey kenyana meesha ku haysa axmed madoobe ma habeen buu joogi lahaa kismaayo hal habeen ma joogin xaguu ka imaaday qabardaaruu ka imaaday 800 kilomitr buu ka imaaday 800 kilomitr buu axmed madoobe ka imaaday runtaan idiin sheegaynaaye dadka walaayeynayaa ka mid ah mukhtaar cabdullaahi saal waa sumeeyey goox buu dilay jamaal colhaye cabdi madoobe ciise kaamboni maxaan ku idhahday intaasoo nin 8 nin ogaadeen hal nin oo sheekhaale u dilay cadaaladda marka uu yaqaan axmed madoobe maxay tahay waa duurjoog weeye shuruucda duurjoogta ayuu kismaayo ku maamulaa waxa weeyaan dowladda soomaaliyana xaq ooma laha inay sanad iyo wax la mida xataa ugu darto nin shabaab ah oo mujrim ah oo kabihii ambiyada xaday weeye axmed madoobe ninkaas farola gacantiisa ku sameeyey oo lahaa calanka xataa anaa u sameeyey anaa jubbaland sameeyey waxaasaa marka lagu leeyahay waa maamul goboleed war soomaaliya maamul goboleed kama jiro mana aaminsanin jeegaanland iyo jubbaland iyo puntland wax leedana ma jiro anagu 18 gobol ee soomaaliya ayaan aaminsannahay dowladdii kacaankaan anagu aaminsannahay soo dhawaada dhammaantiin sheergaray oo gaarsiiye walaalayaal qof baan soo qabanayaa oo 1 daqiiqo ila wadaaya marka raalli ahaada insha allah waa run ninkii leedo soo dhawaada sheergaray oo gaarsiiye walaalayaal فرحان soo dhawaada dhammaan sheergaray gaarsiiye soo dhawaada sheergaray waan kaa qaado walaal ها فرحان وان كسو قبنايا ان هدي وينان كبقيا هدي من اللي يرات aqoonteedii waad leedahay laakiin waa weli waad yarta waad xishoonaysaa wana ninkii daahir cartaa allah u naxariisto wallaahi bilaahi aad baan uga naxay farxaan soo dhawow
هذا السلام عليكم والسلام عليكم. وعليكم السلام. marka hore hadda tacsida guud baan idin soo dirayaa qoliyihiin South Africa. ninka Allah u naxariisto. diga iyo dawadayaashaadana oo ku salaamay dhamaantiin. bal xaaladaada ka waran. والله أنا ما شاء الله حالته أوكي لكن دي ودنكي أون هذه أن ورقة وحرج على تانا إدانيس كنا قنتي ودنكا سود أفريقيا هذا ندي في ديلدي يوحنا رجيني إن حاجة العرق على ذي أو كرسي أنتي لفورو طلعي لفرولو ودوات سيدنا أركيس ما دامو دليرتي إن مستقبل كودي aad ku dhamaysateen qaxooti rajadii kaliya aynu lahayna maalinba maaragtay niman soo shaqo tago dibadda welibana ka wada imaaday qurba jooga ay sidii banooniga ay ummadda Soomaaliyeed ku dheelaan seed u aragtaa wallahi adeero waxa weeyaan arintaasi arin aad looga murugaado dhalinyarada Soomaaliyeed in hadda ay baxeen sidii hore dadku ma aha waxyaalo badan oo la bartay waa jiraan لكن odayaal sida Faraolo oo kala ah waxa weeyaan ummadda in la qabto weeyaan Axmed Madoobe asaga sameeyay asaga caalamka u sameeyay sida sheegtay waa isaga ku shaqeeyay asaga ku shaqeystay dawladana waqtigeeda waa la kordhinayaa insha Allah waqtigeeda waa la kordhinayaa xalimeeyina sida cadeysay waqtigeeda waa la kordhinayaa dawladda dhowr sano laba sano yaraan waa lagu darin annagana ugu taageersan gobolka banaadirna 13 kursi ka badan bay qalantaa oo waxa qalantaa inta ay ka badan marka arintan waa ariska cad maxaa dadkan qabiilka buunbuunanaya ee qola loo badiyay iyo sidaad u aragtaa soo dad dulmi la taagan ma aha exactly dad dulmi la taagan weeyaan gobolka banaadir soddonki sano ugu dambeysay dhibaatada ugu badan meesha ay ka dhacday weeyaan Soomaaliya oo dhan aad ugu taageersan tahay dadka meesha ka codeeyeen reer banaadir kani ma aha Soomaaliya sidaad u aragtaa soo dad dulmi la taagan ma aha ku soco exactly waa dad uu kallay dulmi la ku taagan baan arkaa ani fikir ahaantayda ama film bijeeri ama kursi full laakiin والله بالله إنك بطاي أما فريم بيجري أما كرسي فول ده وحيوم بحيان بالي ميس فولة ميس فولة يوم بحيان بالي ما هذا كورد وحاويان أنت كراس قاتم بس ندي جنون سكراع جنين لكن هذا يمكن هذا كرسي فولي هذا فريم بيجري ودولة القاضي له نظام قرن يسا dadkiisa uu ka mid yahay meeshii laga soo doortay uu dhibaato u geysanay qofkii waxa isku sheegay marka may adiga sidaad u aragtaa macnii Faraolo iyo nimankan elite-ka ah Puntland horbooda iyo shacbigu haday israacaan oo ay khalad isku raacaan sidaad u aragtaa wallahi sheekay ku soo qabtay baashinida la dhaahdo kor waxay tiri waan guuriyaa oo idinka tagayaa malab bayna sameeyay baashaas haye markaas dadkii abriyo waxay dhaheen shinniya guurin markaas ay tiri haye waan joogayaa duqsiba hadana asaguna yiri anoo guurayaa santiisa loo firiyo loo qoslayay duca kugu dareynaa dhaaf nadiif qaran soo dhaw haye marka waxaan u arkaa dadkan inay ka masiirsan yihiin wada hadalka Soomaaliya wada galay ilayna ayaguna waxaan u baahanahay in la hadlo oo waxyaalo badan dawlad ahaan baan nahay sida Soomaaliya kale inaan saameyn ku yeelano siyaasadda geeska Afrika dad ayaguna waa gurmatooriyaal la siiyay Axmed iyo dawladda federaalka heshiisyada ay galayso waxay ay ka qayb qaadan karaan tarawih ku leeyihiin laakiin in ay dawladda dhannayd ku gacanseeyaan waa qalad waxaan ku weydiiyay Faraolo hadda kor wuxuu yiri waan go'aynaa marka muxuu la go'ayaa Soomaaliya sanaag iyo cayna gacan kuma hayo barina dadkii iska laaba xidhay marka ma garowi iyo nugaal baa marka go'aysa xaga magaalo kale ma joogay wallahi inni waxa isleeyahay siyaasadda geeska Afrika ragga qasayay Faraolahaas
iyo raggii adiga qasayay ee Tigray oo ka midka ahaa Axmedoobahaas raggaasay ka soo haray nimankaas marka exactly waxay u baahan yihiin in si gaar ah loola dhaqmo oo macay reintegration waxa la yiraahdo u baahan yihiin my deportation wadanka Geeska Afrika in laga saaro deportation waa musaafirin weeye East African countries in laga saaro oo meelaha loo deport gareeyo oo ay u doontaan immigration sida weydiistaan meelaha oo ninkii la farole Somali Australian citizenship waaye taxi buu waday xataa asoo Australian citizenship inuu Abdulwali waa American citizenship marka Ahmed Madoobe in macnaheedu Zambian citizenship laga dhigi mooji laakiin raggan kale aad aragtay siyaasadda Soomaaliya isku haya marka laga reebo Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud nimankaasu wadankay joogeen walow khaladaad fara badan ay sameeyeen oo ay ka xamaasheen laakiin haddana iyagu macnaheedu yani dual citizenship ma aha هذا لكن قف كل جمعة يدين كرو باسبور أمريكا على كقاطع توح في عن سمينيو like our president is a role model شرعي يسوي إن كستو هذا مسكعري لكن هذا نوع السنة إنه قف فاسية قف الدنيا اللي ما يا وممكن اللي فرماتش إن هم بلا يقتل ما من قالوا حتى يعني إن أب أو وتشل عسندت كيسة رحيم وأنا حريستا يعني أبي همبل بيكون شيء حتى أنا كده ولا حتى وعلى يقول جيبوتي خدمتي سلطة وكسو كوبي هلك نمانك كره إلا ما وقتها وحبي يقول بسنة يعني يو فرين قاري يدير سنة يعني وحكاوس قاضينا مالها بعويا أي صدم أي هيستين ميكروفونك إن كستو أصوّن شيء لكن دتك سياسيين هذانا مركا أي كهاليان خطبتي صاحبين dadka uu meesha wada hadalka kula jiray markuu wada fiiriyay waxay ahayn dad asaga ka da'weyn sax aad buu u xushmeeyay asaga laftigiisa wuxuu dhahay inaan dadka la doodo oo hadda dooda galo waxa weeyaan wax ugu suurtagal ma aha soo khudbadiisa sababahaas u soo koobay horta anigu shakhsiyan waxaan magaalada Muqdisho ku dhashay دكتوركي كده يجيني وحيبة هيد إسلامتي ماشي جبتي هاني وحير بالي يري إن قبل دي يقدر يسي يعني أنا دوس كوهر معنا دينه وارهم إسلام تاسو حلوية إنك لا فرحانو والسياشن تير إلهي بعافمات سيه exactly ما شاء الله she is 90 years markii 60 kiilo joogay 40 sano ay jirtay ما waxay jirtay سو هذا صدم سنة يترتي marka xushmad madaxweynaha dadka soo xushmeeyo yani oo dadka shacabka dhageysta soo qofkana haduu saas yahay dadka inta badan waxay ku taageerayaan waxaas weeyaan marka ما شاء الله نيو ان arintan kale marka arintaas aynu ka gudubno ninka la yiraahdo daahir carto iyo say wax u dhaceen ma si baray badan ku soo waca hadii ilaahay yiraahdo insha Allah bravo okay way khayr baan isku ognay hadda cishaan tukanaya gabadh baan ka dambaysiinaya nadiif qaran haduu ii soo galo marka khayr baan isku ognahay halka ka wad wadani Soomaaliyeed baa tahay adiga laftaadu shaqee oo wadanka u shaqee nin dhalinyaro soo kacaya tahay gooraysader ma santa نظيف قرن هدينا ماركت أين اللايف كوتشرين نسوق لنا يا نادي فقرن أو سوق بنايا لكن لايف كم يشتان ولا يقوله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام محمد نور سيرتاي soo dhawow nadiifo qaran maadaama maaragtay waddaniyad Soomaaliyeed aad tahay waxaan rabnaa inaad dadka Soomaaliyeed gobolka Banaadir xaq ma u leeyahay 13 xubnood oo laga qayliyay live baan ku jiraa ha ummadda Soomaaliyeed la hadal hal daqiiqo waxaan ku weydiiyay gobolka Banaadir 13kii la siiyay dad baa ka xanaaqay sideed u aragtaa ummadda Soomaaliyeed la wadaag ma yaa ka xanaaqay mise dadka macnaha ka xanaaqay baad ma dad baa ka xanaaqay laakiin anagu waan soo dhaweynaynaa kulay aniga hadaad akhriday maaragtay live-kaygan waxaan ku soo qaatay gobolka Banaadir xaq buu u leeyahay 13 iyo ka badan kuwa diidanna macnaheedu bursi bay rabeen baan ku soo qoray hadaad akhriday kaas isweydiin ma horta waxa weeye qof kasta maaragtay meel kasta xuquuq bay leedahay walaalkay صح meel kastana maaragtay in xaqeeda ay hesho meel kasta dad baa ku nool dad baa wax ka qaybsada hadda anagu qurbaha aan joogno gobol kasta xaq buu leeyahay dad baa maamula dad baa laga doortaa dad baa meeshaas u ah leader u ah moogta صح marka horta taas isweydiin ma leh xaq ma u leeyihiin mise ma u laha weliba reer Banaadiriga dadka cadcad dadkii joogay oo maaragtay meesha lagu yimi xaq way u leeyihiin gobolkana in dad metela sida maaragtay duqa magaalada kale to waqlo ka soo gala degmooyinka xaq bay u leeyihiin maaha inta xaq u leeyihiin bay xaq weliba wanaagsan u leeyihiin meelna waxa weeye meel kasto lagu wada joogo qof kastiba meel ha wada hadda dibaddan anu Mareykan baa ku noolahay Washington DC baa anaga caasimadda noogu weyn ah qola ma dhihi karta anaga iskale laakiin haddana lama iyadoo sida ay tahay haddana lama dhihi karo maadaama qola sheegan karin ama meel kaliya loo magacaabi karin xaquuq lama siinayo dad baa xaq u leh oo laga soo doortaa dad baa metela Minnesota dad baa metela marka qasab waaye qof kasta in wadankiisa lagu tixgeliyo meeshiisa xaqiisa la siiyo ilaa maxaa waxa la raadinayo waxa weeye waa wax qof kasta inuu qanco qof kastina uu waxa uu rabo uu ka hadlo adigu ma ogaan kartid waxay u baahan yihiin haddaad tahay meel kale haddaad ka imaato adigu dad baa metesha iyaga marka sida adigu dadka u metesho sida adiga lagu soo doorto adiga markii lagu soo dooranayo oo lagu keenayo caasimad maxaa lagu keenaa hadda anagu Minnesota waxaan ka dooranay Ilhaan Cumar waxaan u diray aqalka sare yey metesha waxay metesha Washington DC may Minneapolis bay metesha iyada laga doorto gobolada kale to Soomaalinimo ku metesha laakiin rasmi ahaan waxay soo warhaysaa tahay oo hadii ay samacdo inay ka hadasho ama dibka ka jira ay soo bandhigto ay dib u taqaana waa Minneapolis Soomaa marka way u baahan tahay Banaadirna qof sidaas oo kale oo maaragtay loo soo doorto anigu 100% waa taageersana aad baan u soo dhaweynaya aad baan ugu faraxsanahay waan gartay laakiin aan halku saxo Ilhaan Cumar aqalka sare ma aha waa aqalka hoose ee Congress-ka waaye adiga aqalka hoose waa warantahay sorry amaan hadalku ma jiro marka laakiin siday tahay macnaha waxa weeye qof kasta xaquuq leeyahay marka aad baan u soo dhaweynaya anigu waayahay qolyaha ka soo horjeeday afka furtay ee Faroole iyo kooxda Aaranjan ay ka mid yihiin seed u aragtaa wallahi taas waxaan u arkaa horta aad baan uga xumahay laba hadal oo maaragtay adduunka horta waxa fiican inaad intaan lagu xisaabin xisaabi baa la yiri mo qara maxaa la yiri intaan aakhira lagu geeyo oo lagu xisaabin oo maaragtay lagu soo taagin adigu bal wixii dadaal alla iman karto isleeda waa ku badbaadi kartaa sameeyba ilaahay ina faray Sooma hadda ka hor video waxaan arkay hadda maalmo la wareejinayo maalmahan oo madaxweynaha Puntland uu ku leeyahay xuquuqda Banaadir uu ku raadinayo weliba uu gobol ku dhigayo uu ku doonayo marka anigu ma garan karo hadalkaasna maalintii uu lahaa wixii uu gala jeeday maantana waa aragnaa marka taas waxaan u arkaa in xoogaa Puntland horta ma aha Aaranjan kaliya ma Puntland dad jecel oo afarta koone hadda dadka midiyaha fadhiya ama maaragtay aad u taageeray ama aad ugu faraxsan ama aad u support garayna wareer Puntland bay u badan yihiin marka laakiin waxa labada xabo Aaranjan ee Puntland oo dhan in loo saaro aan wax ka soo laba tuuga oo aan rabin iyaguna inay hore dadkooda u wadaan wadankuna hore u socdo weeyo horta waxa diidan iyagana afkooda isku xiray kuwaas iyaga hadaladooda ay fiidiyaan mar hore gashadeen in oo hadda wareegay in loo adeegsado su'aalo looga weydiiyo bal lagu waraysto oo
shalna saasaad lahayd maantana saasaad leedahay isaga horta su-aashaa la weydiiyo uu ka jawaabaan baan jeclaan lahaa iyagayna ku habboon tahay su-aasha in la weydiiyo laakiin waxaan anigu ka digaya dadka hadda maaragtay inaan lagu aflagaadaynin in reer puntlandna ay yihiin kugu warraba horumarka isbedel horena u rabay meel wax badan oo marka taas in la kala saaro waa jeclaan lahaa xoogaa waxaad u malaysaa in wixii la isku qabtay hal wadana la wada mariyey midda aan u guulaysan weynay aniga nadiifo qaran ahaan aan arko oo midda aan u guulaysan weyna ay tahayna waxay tahay waxaynan kala saarin qof baa qalad gelaya hadda adigaas walaalkayaba qalad iga gelaya adigii kuma aadayo ma dhahayo axmed baa manuur baa dhibkaa ii geystay waxaan aadaya familkaagi qabiilkaagi iyo meeshii aad kasoo jeedaan caynaya taas marka waxaan ku weynayaa wax wanaagsan ama dad ii kicilaayo adiga kaa soo jeeda ama dad wanaagsan oo aniga ii helin lahaa baan ku weynaya marka taa horta waa ka digayaa qofkuna hadduu halkan ku jiro ama dadka weliba dadka hadla dadka maaragtay dhaha ummaddaan isu keena kelmadaasu anigu waxaan arkaa ummadda laysku qabanayo oo dadkii o dhan loo aflagaadaynayo in wax lagu kala fogeynayo ani waxay isu soo dhaweyna marka horta inaan inagu ka fogaano oo dadkeena halganka ku jira ama dadkeena wanaagga raadinayo sababta waxaan raadinayna waa generation waxaan raadinayna waa ummad 30 sano bilaayo kala xiratay oo qolo lagu xirtay oo rag aynu u malaynayna inay dan inoo wadaan laakiin qaranka neceb oo qaran la dagaalamaya aynu u aragnay inay qabiil la dagaalamayaan ama qabiil inoo tusaayeen horta inaan taa ka fogaano walaalayaal waan jeclaan lahaa oo markaad wax ka hadlaysiin ama aad wax soo bandhigaysiin aydanaan dadna dib u geysan ee labada tuugo aynu iska qabanno tuugada maanta camal inay caasimad hesho iyo inay maaragta caasimad wayba ayda inay mataan hesho inay sidaa u badnaato inuu dhismuhu heerkaa gaaro in ummadda dhan maanta qof kasta uu dhao xamar baa ku socdaa waxa keenay ma aha qabiil ma aha wax ummad la isku dira maayo waxaa keenay shacab iyo dhalinyaro wacyigelin heshay iyo dawlad u diyaar garowday inay tusto haddii wax loo qabto haddii la damco in wax loo qabto dadka in wax loo qaban karo laysuna keeni karo ummadda marka taa inaynu ka shaqayno aad baan dadkii hadla ugu boonin lahaa وانا بسلامة يا ولد انت سكسكون جزاك الله خيرا انا لفتيد وان سي غبغبينايا وايو عشيه با اي تاغن marka جزاك الله خيرا هيا واد ما سنتي ولا شيء غالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورخياري وانا سلامي وانا كبخاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته